السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سولو هذا صاحبيال باوند تو اون وترتن سنة الله وإيمال جلسو شركة تيبل بوينتي وإحنا لغو قبتها هولكا كنسو ويستي سيكوريتي مقالة فانكوفر ودن كندا. باوند تو اون waxay ku dhiirigelisaa khubrada inay jabsan karaan oo ay ka faa'iideysan karaan software-ka iyo aaladaha kala duwan si ay ugu guuleystaan qalabka ama aaladda la jabsaday iyo abaalmarin lacageed. Marka aaladda la jabsado Tipping Point waxay ururisaa warbixinta fatiran oo ku saabsan sida uu hackerku u jabsaday software-ka waxayna la wadaagaan shirkadda iska leh ama samaysay software-ka ama aaladda waxayna ku hagaan sida ay u xalin lahaayeen ciladaasi. Tartanka 2010 ee Bound to Own hackersku waxay si guul leh u jabsadeen Apple iPhone-ka iyo Internet Explorer 8-ka. Tipping Point daha kama qaado wax macluumaad oo ku saabsan sida software-ka loo jabsaday ilaa kadib markii ay shirkadda iska leh ama samaysay software-ka ay ka xalistaan ciladaasi. 2015 abaalmarin kasta oo la heli kara ayaa lagu guuleystay. bishii March dhammaan browserada waa la jabsaday wadar ahaan $557,500 iyo abaalmarino kale ayaa la guddoonsiiyay. hackerskii ugu sarreeyayna waxaa lagu maamuusay inuu yahay Jan Hunley kaasoo la wareegay IE11 labada nooc ee Google Chrome-ka iyo Apple Safari wuxuuna helay 225,000 oo abaalmarin ah. dhacdooyinka kale waxaa ka mid ahaa Team 509 iyo Ken Team oo jabsaday Adobe Flash iyo kuwa kale oo jabsaday Adobe Reader. guud ahaan waxaa jiray 5 ciladood oo laga helay operating system-ka Windows-ka, 4 ayaa laga helay Internet Explorer-ka, 3 ayaa laga helay Firefox-ka, Adobe Reader-ka iyo Adobe Flash-ka, 2 ayaa laga helay Safari ama Apple Safari iyo 1 oo laga helay Chrome. sanadkii 2015 ayaa ku calaamadsan sanadkii la jabsaday browser walba oo dunida ka jiray. sanadkii 2019 waxaa ku soo biiray tartanka gawaarida Tesla Model 3 waana la jabsaday iyadoo hackersku ay ku guuleysteen hanti dhan $375,000. sanadkan aynu ku jirno ee 2021 waxaa loo gudbay in lagu soo bandhigo software-ada communication-ka sida Zoom, Messenger, Microsoft Teams, Microsoft Exchange, Windows 10, Google Chrome, Microsoft Edge iyo Ubuntu. dhammaantoodna waa la isku dayay. Google Chrome iyo Microsoft Edge ayaa lagu guuleystay in la jabiyo waxayna hackerskii ku guuleysteen hanti dhan $1,200,000. intii lagu guday jiray 2018 China ayaa tartanka isaga baxay iyadoo tartamayaasha maalgeliyaasha ka socday China ay dhammaantood isaga baxeen iyadoo ay jirtay in hackerska Chinesku ay ahaayeen kuwa ugu sarreeya uguna awoodda badan tartanka Bound to Own waxayna uga dan lahaayeen in shirkadaha Fooriyaanka ahi aysan ka faa'iideysan muwaadiniinta Chineska maadaama ay yihiin kuwa ugu hackerska badan uguna awoodda badan dhanka hackernimada. maadaama ay wadanka China ka saartay muwaadiniintii ka qaybgali jiray tartankan oo lagu qaban jiray Canada ayay waxay go'aan ku gaadhay inay u qabato tartan kale oo lagu magacaabo TimeView. sanadkii waxaa la qabtaa 2 jeer waxaana sanadkan galay sanadkii 3aad. TimeView ayaa hadda ah goob ay isugu yimaadaan khubrada hackerska, researcherska ama cilmi baarayaasha iyo maalgeliyaasha gudaha China si ay ugu soo bandhigaan xeelado iyo cilad cusub oo lagu jabsan karo software-ada ugu horumarsan caalamka iyo aaladaha ugu horumarsan caalamka. tartankan ayaa waxaa lagu jabiyay iPhone-kii ugu dambeeyay ay soo saarto shirkadda Apple kaasoo ahaa iPhone 13 iyadoo lagu jabiyay muddo gaaraysa 15 ilbiriqsi oo kaliya.